Asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal. Iga raali noqda ma awoodo inaan idiin sheego magacayga sidaad ku soo aragteen qaybtii hore. Waa tii bidcadu soo weerartay gurigayga oo kuwii sababay dhimashadii labadii askari. Nasiib wanaag labadeeda waalid ma joogin guriga. Askartuna waxay go'aansatay inaan joogno xarunta booliska ilaa uu xukuumaddu ka dhammaanayso. Waxaan ogaaday inuu aabbahay ku markhaati furi rabo bidcadka adduunka ugu weyn. Waxayna u sameynayeen wax kasta si ay noo dilaan, si uu hogaamiyuhu uga baxsado jeelka xukun la'aan. Waxaa la xadiday ayaanta ay xukuumaddu dhacayso, waxayna aabbahay iyo askartii u baxeen xagga iyo maxkamadda. Markii ay gaadheen, qarax ayaa dhacay kaasoo bambo loogu xidhay meel u dhow albaabka. Gaadhigii askartu wuu burburay, waxaana la dilay qaar ka mid ah dadkii meesha ku sugnaa. Arrinku wuxuu naxdin geliyay dadkii oo dhan. Anigoo daawanaya TV-ga, war degdeg ah ayaan ka helay kanaalka wararka. Qaraxii ka dhacay maxkamadda horteeda. Meeshaydii ayaan ku qalalay. Xaggay hooyaday oo hinafka furtay. Wax war ah kama helin aabbahay. Aad ayaan u naxsanayn. Askarta ayaan ku sugaynay wixii cusub ee wara. Aabbahay miyuu ku dhintay qaraxan? Si degdeg ah telefoonkii askarta ayaa la soo wacay. Ninkii askariga ahaa ayaa u jawaabay. Waqti yar ayuu la hadlay. Wanaag ayuu noo muujinayay. Kadib telefoonka ayuu xidhay. Hooyaday ayaa ku qaylisay, noo sheeg miyuu dhintay? Dad badan ayaa dhintay. Jahwareer ayaana ka jira meesha. Gaariyaashii ambalaaska ayaa si degdeg ah u yimid, waxayna badbaadiyeen qof kasta oo naftu ku sii hadhay. Ninkaagu wuu nool yahay wuxuuna ku jiraa xaalad aad u xun. Doctor ayaa jug weyn ka soo gaadhay wuxuuna yaalay cusbitaalka. Xagga kale hogaamiyihii waxa soo gaaray dhaawacyo fara badan. Xagga uu shaqaalihii Fadi u galay koomo, kadib dhaawacyo aad u weyn oo haleelay. Iminkana waxa u dhexeeya nolol iyo geeri. Neef ayaan qaatay. Waxaan dareemayay nafis. Inkastoon aad uga murugeysnaa dadkii dhintay, sidoo kale shaqaalihii Fadi. Askarigii ayaan ka dalbanay inuu noo kaxeeyo dhakhtarka si aan uga xasilno. Dhakhtarka ayaan tagnay, ammaanka waxa uu ahaa mid aad u sugan. Markii aan soo galnay waxaan aragnay aabbahay oo miyir qaba, laakiin lugtiisu waxay ahayd mid ay jug weyn soo gaadhay. Waxaanu socday si aan u arko Fadi, kaasoo koomo ku jiray. Markii ay madaxa wax uga soo gaadheen qaraxii, kaasoo hogaamiyuhuna iska fiicnaa. Dhaawacyo soo gaadhay. Aad ayuu u cadhaysnaa. Muuna kala dhigayn telefoonka ku hadalkiisa. Wuxuuna la hadlayay dadka ka sarreeya. Wuxuu ka dalbaday inay u jawaabaan kooxdan bidcadda oo ay si adag uga soo horjeestaan. Yar kadib warka ayaan ka maqalnay. Walibana taliyihii sare ee askarta wuxuuna sheegay inay wixii dhacay aynay ahayn wax sahlan. Wuxuuna iclaamiyay dagaal aad u weyn ay ku qaadayaan bidcadda. Haddaba maalintii xigtay, iska hor imaadkii ayaa bilaabmay. Taasay askartu qabatay in badan oo ka mid ah bidcaddii. Qaar ka midana waxay ku dhinteen iska hor imaadkii. Waxaana la joojiyay dagaalkii bidcadda. Waqti yar kadib waxay dhawaadeen inay qabtaan hogaamiyaha labaad ee bidcadda. Waana kii keenay fikraddii qaraxa. Waana qofka maamula bidcadda hadda. Dhinaca kale aabbahay waxa uu soo noqday caafimaadkii. Inkastoo lugtiisii fiicnayn hadda, wuxuu isku qasbayaa inuu soo socdo. Wuxuuna adeegsanayay birihii. Dhinaca kale shaqaalihii Fadi waxa uu ka kacay koomadii, laakiin muu awoodin inuu dhaqdhaqaaqo. Hal kelmad xitaa muu odhan karayn. Aad ayaan uga murugeysnaa inaan ku arko xaaladdan. In yar kadib waxaa yimid war la yaab leh. Askartu waxay caddaysay maalinka iyo meesha ay xukuumaddu ka dhacayso, waxaana loo shaaciyay si toos ah. Wuxuuna sheegay in markan maxkamadda ammaankeeda aad loo sugayo askar badan, qofna uma soo dhowaan doono. Waxaa la bilaabay isdiyaarintii aabbahay ee maxkamadda. Maalinka aniga iyo hooyaday ayaa la soconay. Markii aan soo gaadhnay goobtii, sideed dad caan ah ayaa lanoo soo dhoweeyay. Kaamirado ayaa lanaga duubayay. Ilaalada meesha aad ayay u adkeyd. Taangiyo, askar, xitaa diyaaradaha askarta. Suurtagal ma ahayn inay u soo dhowaadaan bidcaddu. Xukuumaddii ayaa bilaabantay waxaana la soo geliyay dambiilihii oo ahaa hogaamiyihii bidcadda iyo koox ka mid ah kuwii u doodayay kuwaasoo la soo siiyay lacag si ay u difaacaan. Waxyaabo badan ayay maxkamadda horteeda ka sheegeen si ay dambi la'aan uga dhigaan. Iminkii haatan waa waqtigii aabbahay. Xaakimkii waxa uu ka dalbaday inuu ka sheekeeyo wixii dhacay. Aabbahay waxa uu ka bilaabay bilowgii sheekada. Shirkadda ayaan shaqaale ka ahaa. Madaxa shirkaddu waxa uu ahaa saaxiibkii ugu wanaagsan. Waxba igama qarin jirin. Maalin ayaan arkay isagoo aad u murugaysan. Kadib markaan weydiiyay wixii uu jawaabay, dadkaasi way i hanjabayaan. Waxayna baabi'inayaan shirkaddayda. Waxayna i gelinayaan jeelka. Maxaad leedahay? Dadkee maxayna kuugu hanjabeen? Bidcaddan waxay igu hanjabeen inay dilaan aniga iyo qoyskayga haddii aan ku garab geli waayo inay lacagta beenta ah isticmaalaan iyadoo loo marayo shirkaddayda. Maxaad askarta ula wadaagi weyday? Inaan aamuso ayuu ka dalbaday wuxuuna yidhi, miyaad waalan tahay? Miyaanad ogeyn khatarta dadkan?
dilitaanku xaggooga riwaayad ayuu ka yahay. Xal kale ma haysto kaliya inaan caawiyo mooye. Waa inaad igu dheerataa inaan cidna u sheegin arrinkan. Waan ku baryayaa, laakiin waan ku baryayaa i rumayso. Arrinku wuu ka khatar badan yahay sidaad malaynayso. Haye cidna uma sheegi doono. Haddii aad caawimo u baahato, garabkaaga ayaan ahay saaxiib. Ayaama kadib waxaa bilaabantay inay Bidhacdo timaado shirkadda si ay ugala baxaan qayb ka mid ah lacagtii. Laakiin shay kasta wuxuu isbedelay maalinka. Maalin fasaxa ayay ahayd, shirkadduna way madhnayd. Muran ayaa dhex maray saaxiibkay iyo madaxii Bidhacda. Welibana markii uu saaxiibkay isku dayay inuu waco askarta una gaadhsiiyo arrinkan. Message ayaa ii soo dhacay, waxaana rabaa inaan idiin sheego. Kaasoo igu odhanayo inay Bidhacdo dili rabaan hadda. Wuxuuna iga dalbaday inaan ka warhayo qoyskiisa aanan u soo daceeyo. Ma rumaysanayo waxaan arkayo. Si degdeg ah ayaan ku yimid shirkaddii. Anigoo isqarinaya ayaan soo galay. Waxaanan arkay Bidhacdii oo ka buuxda meesha. Hogaamiyuhu waxa uu la hadlayay madaxa shirkadda isagoo cadhaysan. Cay ayay isweydaarsadeen. Isagoo murankii socda, hogaamiyihii Bidhacda waxa uu qabsaday baaskooladii xabaddii ayuuna ku riday. Halkii ayayna ku dileen. Waan isqariyay anigoo gariiraya. Cabsi darteed kumaan dhiiranin inaan askarta u sheego wixii aan arkay. Laakiin usbuuc kadib ayaan muujiyay geesinimo oo waxaan warkii la wadaagay booliiska. Waa taa qisadii oo dhammaystiran mudane xaakim. Xaakimkii iyo raggii kale waa ay baxeen si ay wada hadlaan ka hor inta ay gaadhin go'aankii ugu dambeeyay. Kadib markii uu soo noqday, dadka dhan hortooda waxa uu kaga dhawaaqay in lagu xukumiyo hogaamiyihii Bidhacda xukun dil ah. Annagoo eegayna dadka farxadooda, bahalkani ma aha inuu sii noolaado. Markii uu xukunkii dhammaaday, waxaa yimid go'aan ah in la soo celinayo ilaalintii markhaatiga. Kadib waxaan awoodnay inaan ku noqono magaaladeedii si aan u degno halkaa. Dhinaca kale waxaan ilaalinayay mid ka mid ah shaqaalihii. Ugu dambeyntii waxaan la kulmay saaxiibaday. Markasta waxaan ka cabsi jiray iyaga sidii qof ka soo noqday dhimashadii. Laakiin waxaan u sheegay wax kasta oo nagu dhacay bilooyinkii na soo dhaafay. Dhab ahaantii waxaan ku soo noqday iskoolkaygii. Noloshaydiina waxay ku soo noqotay sideedii hore. Kadib maxaa dhacay? Ayaan anigoo jooga albaabka iskuulka, dhinac joogana ninkii ilaalinayay. Nin ayaana soo garab maray, waraaqada ayuuna ii dhiibay. Si degdeg ah ayuuna u baxay. Ka hor intuuna ilaaliyihii arag, si degan ayaan u akhriyay waxa ku qornayd. Isku day inaad iska kaartayso ilaaliyahan. Aanad iigu timaado suuliga. Haddii aad sidaas samayn weydo, waxa uu dhiman doonaa si degdeg ah. Eeg suudhka uu gashan yahay iyo saqafka kore ee ka soo horjeeda. Sababta adiga ogaaniye. Kadib waan eegay, waxaan arkay dhibic casaan ah. Madaxaan kor u qaaday kadib waxaan eegay saqafka kore. Waxaan arkay shiishiyahan qorigiisa haysta oo sugayay amar kaliya. Wax dhaqdhaqaaqa ma samayn karayn. Waxaan u sheegay inaan suuliga tagayo waqti yar kadibna aan soo noqonayo. Uuna isugu uu i aqbalay. Si degdeg ah ayaan ku tagay. Suuliga ayaan galay. Waxaan arkay qof i sugaya. Waxaan ku yidhi waan ku garanayaa. Waxaan kugu hor arkay gurigayga hortiisa. Waad i xasuusataa. Halkan waxaan kugu yeedhay shay muhiim ah. Ma inaan dishada rabtaa waxaayoo dhan kadib? Maxaad ka faa'iidaysaa? Haddii aan rabo inaan idin dilo kulamaan hadli lahayn hadda. Maxaad doonaysaa haddaba? Wixii dhacay oo dhan qofka sameeyay waa hogaamiye ku-xigeenka Bidhacda. Waxaayoo dhan maanu samayn lahayn. Kusoo badbaadintii hogaamiyaha jeelka waxay ahayd xalka kaliya aan haysanno. Laakiin muhiim maaha imika. Waxaan isku dayay inaan ka soo horjeesto. Kadib dhimashadii hogaamiyaha, hadda sharciyada Bidhacdo gacantayda ku jiraan. Noloshiina waan idiin deynaynaa. Mar kalena idiin dhimi mayno. Shuruudahan kadib, waxaan doonaya inaad iga gaadhsiiso waalidkaaga. Waxa weeyaan inuu kala hadlin saxaafadda mar kale arrimaha Bidhacda. Uuna weydiiso askarta inayna aaminaan. Si aan u istaajino dagaalkan aan joogsiga lahayn. Ugu dambeyn, inaan dib idinku dhisno gurigiina la gubay. Shuruudaha aqbala. Noloshiina waxay ku soo noqon doontaa sidii hore. Haddii uu qof idin dhibo, waad garanaysaa qofka aad la xiriirayso. Isagoo qoslaya ayuu socday. Gurigii ayaan ku soo noqday. Waalidkayga ayaan u sheegay wixii dhacay. Kadib wada hadalkii aabbahay iyo hooyaday, waxaan go'aansanay inaan aqbalno. Xal kale ma haysanno. Inaan la dagaalno wax muhiima nooma laha hadda. Hogaamiyihii Bidhacda waxaa la marsiiyay waajibkiisii. Shay kastana wuu dhammaaday. Ayaamo kadib, noloshaydii waxay ku soo noqotay sidii hore. Mar kasta waxaan isweydiinayaa, wax walba oo dhacay ma u qalmaan? Dhimashada dad badan oo waxba galabsan. Iyo waalidkayga oo aan hadda awoodayn inuu socdo la'aan. Iyo Faadi oo aan hadli karayn. Isagoo ugu dambeyntii awooday inuu yara socsocdo. Kadib dhakhtarka oo in badan ku jiray. Ilaahay ama hadle mar kasta. Halkan ayay ku dhammaatay qisadeeni saaxiibayaal. Fikirkiina nagula wadaaga kommentiga hoose. Waad ku mahadsantahay daawashada qisadan. Maca asalaama.